Baby. Waan ku jeclahay baby. adigoo ku bilaabaya magacaaga ee ku soo dhaweey Noori Media. waan ku dhawaay walaale magacaygu waa Muwaay Maxamed Cabdi. way Muwaay barnaamijka dadyoga isjecel baan u tijaabinaa ma jira qof aad xiriir leedin haa u jira way qofkaasan lambarkayga ka wacayna kadib magacaagaan weydiinayna halkaasaan ka ogaanay ducadii haye way waan kala ka wacay lambarka way magaciisa Cabdiqani xanuungalyaha coronavirus uu soo laba kacleeyey waxaana uu keenay dhimasho badan si degdeg ahna wuu u fidayaa haddaba si aynu u yarayno khatartiisa qaata tallaalka covid-19 si joogto ah ugu farxasha biyo iyo saabuun kala durka ugu yaraan 2 tallaabo xidha afsaabka marka aad qufacaysa ama aad hindid Hello, السلام عليكم. عبدالغني صوما صاحب. walaalow barnaamij baan duubayaa waan youtuber ka wadi waxaa kala soo hadlayaa magaalada Burco garabkayga midig waxaa taagan gabadh barnaamijka dadyoga isjecel baan tijaabinaa saaxiib ka wadi marka gabadh baa garabkayga midig taagan waxayna naga codsatay inaan lambarka u tijaabino marka waxaan jeclaanay walaal inaad magaceeda noo sheegto adigoo raaliya saaxiib barnaamij dadyoga isjecel baan duubnaa oo YouTube ka wadi kadib garabkayga midig gabadh baa joogta oo nagala soo qayb gashay waxayna naga codsatay inaan adiga kugu soo wacno kadib magaceeda aan ku weydiino may magaceeda noo sheeg walaal iyada tiri lambarka ay waco ii weydi macnaa inuu daacad yahay yaa walaal haa walaal maya walaal adiga Cabdiqani baa lagu dhahaa lambarkaagan iyada noo ka soo wacday marka saasaan kula soo xidhiidhnay walaal waana barnaamij kamaradna way socotaa walaal isku day marka adigoo raaliya si fiican may gabdhaha ma wada taqaanida waa qofkaad wada xidhiidhka wada leediin walaal xidhiidh baa idinka dhexeeya yadaa sheegtay oo xidhiidh baan وجرى كعلننا سؤالاتي ويديو فضلا كوالي مركلة coronavirus uu soo laba kacleeyey waxaana uu keenay dhimasho badan si degdeg ahna wuu u fidayaa haddaba si aynu u yarayno khatartiisa qaata tallaalka covid-19 si joogto ah ugu farxasha biyo iyo saabuun kala durka ugu yaraan 2 tallaabo xidha afsaabka marka aad qufacaysa walaal barnaamij baan duubaynaa marka walaal isku day inaad nagala qayb qaadato haa walaal waa Nuuriye إيش برنامج كان دوبه يا ويقعد كيسي إيش صاحب برنامج هو فهم يا محمد عينيه يو بدي هذيك سوق شيخ دمر ويلا joogtaa kowdhi marka iyada aday ku soo wacday wayna ku maqlaysaa samiicaduna way furan tahay magaceeda noo sheeg adiga raaliye saaxiib saaxiib بس كران سنكون ونسعى عبدالغني adiga ma in qofkii markii hore ilaalay ما دي هذا الكودي واني كرا لكن واني كما كرانا كاق si fiican لا ورو طالب انا هذا مش عايز جرام ماشي ايوه والله ما سنتها haye walaal dawan kala bartay wixii yahay Soomaa wasas ايوه ان شاء الله هذا ما سنتها adigoo ku bilaabay magacaaga ku soo dhaweey Noori Media aan ku dhawaay walaal maxaan magaca muna way muna waxaan tijaabinaa nasiibkaaga wana barnaamij dadyoga isjecel ma jira qof aad xiriir leedin adiga way qofkaas lambarkayga ka wacayna kadib magacaagan weydiinayna صح okay lambarkiis
اوكي مجلس عبد الرحمن xanuundaliyaha coronavirus uu soo laba kacleeyay waxaana uu keenay dhimasho badan si degdeg ah. halo salaamu calaykum. calaykum salaam. walaal cabdiraxmaan soo maaha. walaalow waxaa kula hadlaya nin barkhad la dhaho kowdhe. nin barkhad la dhahaa kula hadlaya. walaal barnaamij baan duubayaa lambarka waxaa u soo wacay gabadh baa ila joogta marka dadyoga isjecel baan barnaamijkan ka qayb qaata. barnaamij dadyoga isjecel walaal la weeye kowdhe. macnaha barnaamij dadyoga isjecel aan isu tijaabinayno qofkii jecel baa kule qofaa sheegay inuu adiga ku jecel yahay oo xidhiidh idinka dhexeeyo marka barnaamijku waa qofka kale ayaanu weydiinaynaa qofka nala taagan isaga magaciisa. marka gabadh baa ila taagan sheegtayna inuu xidhiidh idinka dhexeeyo isjeceshiin marka magaceeda inaad noo sheegtaan kaa codsanayna walaal. walaal iyadoo way ii sheegtay haddana waxay naga codsatay inaan adiga ku weydiino walaal saasaanu kugu soo wacnay iyada. muna magac kale miyaa u taqaanaa? oo la hadal weeye la hadal. halo waa mahadsan tahay lagu tijaabinayone hadha waan kula soo hadlaya. ka waran dareenkaaga? wallahi waxaan la fulin ma filanis fariintaad u diraso fariintaan u dirayo isaga waa mahadsantahay. ku bilaabay magacaaga ee kusoo dhaweey Nuuri Media. wadhawahay walaal macaan xabsa cabdiraxmaan shaah. xabsa barnaamijka dadyoga isjecel baan duubnaa aan isu tijaabinaa inay daacad isu yihiin marka ma jira qof aad xiriir leedahay? walaal qofkaasaan taleefankayga ka wacayna kadib waan ogaanay inuu daacad ku yahay magacaaga aan weydiinayna insha Allah. magaciisa maxamed. coronavirus uu soo laba kacleeyay waxaana uu keenay. halo salaamu calaykum. walaal maxamed soomaa walaal. walaalow nin barkhad nuuriye la dhahaa kula hadlaya oo youtuber nin barkhad nuuriye la dhahaa kula hadlayo youtuber kowdhe. barnaamij baan duubayaa walaal macaan marka waana barnaamij dadyoga isjecel aanu u tijaabino kowdhe. barnaamij dadyoga isjecel aan duubnaa kowdhe. qofku jecel yahay baan u wacnaa marka garabkayga midig waxaa taagan gabadh sheegtay inuu xidhiidh idinka dhexeeyo oo isjeceshiin marka waxay naga codsatay inaanu adiga kuu tijaabino marka magaceeda noo sheeg walaal. yaa walaal waxay la joogta gabadh sheegtay in adiga ku jeceshahay kowdhe oo xidhiidh idinka dhexeeyo. walaal waxaan kaala hadlay barnaamij YouTube aan duubaya marka gabadh baa ila taagan sheegtay inuu xidhiidh idinka dhexeeyo waxayna tidhi ii weydii magacayga. kaasina waa jira oo ka celinina maxamed samayn. coronavirus uu soo laba kacleeyay walaal isku day inaad fahanto barnaamij baan duubaynaa wax kalena ma wadnay marka qofkaas naga codsaday inaan adiga kuu soo wacno walaal waan kaala hadlayaa gabadhaas igu tiri magacay weydii yada ila taagan walaal yada iga ka codsatay waxaan anigu doonayaa ma fahanti yadaa walaal doonaysa anigu ma dooniyo yadaa iga codsatay inaan adiga kuu weydiiyo walaal youtuber baan ahay walaal. mobil hadduu kuu dhow yahay waad baari kartaa. mobil haddii uu kuu dhow yahay walaal waad baari kartaa daqiiqadana way nagu socdaan walaal. walaal aniga laascaanood baa joogaa. walaal
si fiican walaal waan ku maqlaa walaal cid kale weydii su-aasha haye walaal aad baa mahadsantahay way door dareenka waxaan rajeynayaa yaraano caadi daak insha Allah fariinta u dirso ya waa mahadsantahay